السلام عليكم. halkan waxaan idinku soo gudbinayaa macluumaad muhiim ah oo ku saabsan derbiga cajiibka ee ku yaala Shiinaha. dhismahan la yaab kale ee ku yaala Shiinaha waa khad difaaceed aad u dheer, la dhisayna 2,000 sano ka hor. waa derbi la yaab leh oo dhex mara dhul buuraley iyo togag aad u qalafsan. dherarka derbigan wuxuu gaadhayaa 2,400 kiiloomitir, wuxuuna leeyahay taalooyin ilaa 5 kiiloomitirba. inta badan qalcadihii wakhtigaa la dhisi jiray waxay burbureen qarniyo badan ka hor. keliya qaybo aad u kooban ayaa ka soo hadhay maanta, waxaanay ku tusaysaa dadaalkii dheeraa Shiineeska hore bixiyeen si ay uga tagaan raad taariikhda gala. taariikh ahaan waxaa la dhisay intii u dhexaysay 475 ilaa 221 BC ee hoggaankii boqorkii Qin Shi Huang, waxaana dib u habeyn loogu sameeyey intii u dhexaysay qarnigii 14aad ilaa qarnigii 17aad ee hoggaankii boqortooyadii Ming Dynasty. ilaa 25,000 oo qalcadood ayaa lagu qiyaasaa in lagu dhisay derbiga xilligii boqortooyadii Ming Dynasty. ujeeddooyinkii ugu waaweynaa ee loo dhisay gidaarka weyne Shiinaha waxay ahaayeen inuu ka ilaaliyo weeraradii Mongoolka ee kaga imanayay dhinaca waqooyiga, iyo sidoo kale inuu ka ilaaliyo dadkii xoolo dhaqatada ahaa ee Shiinaha kaga soo haajirayay waqooyiga. marka laga yimaado difaaca, ujeeddooyinkii kale ee loo dhisay waxaa ka mid ahaa in la sii dhex mariyo ganacsiga waddanka Shiinaha. derbigan ayaa waxaa loo aqoonsaday mucjisada koowaad ee ugu weyn adduunka. juqraafi ahaan waxa uu sii dhex maraa magaalada Dandong ilaa harada loo yaqaano Labnoor ee waqooyiga waddanka Shiinaha. malaayiin dalxiisayaal ayaa sanad walba soo booqda si ay ishooda u soo saaraan mucjisadan la yaabka leh.